sida la sheegay maanta oo ah 14 bisha February ama bisha labaad ee sanadka 2019 sanadka miilaadiga ah waxa ku beegan maalinta gaaladu ay u dabaaldegaan maalinta jacaylka ama yoomul hubbi maalintaas dabaaldega loo dabaaldegaa waa dabaaldeg jaahiliye ah waa dabaaldeg gaalo dabaaldeg islaam ma ah arintaasina taariikh bay leedahay oo waxay ku bilaabatay waqtigii Roomaanka sanadkii 270 taariikhda hadda miilaadiga ah markay ahayd ayaa boqorkii xukumayay boqortooyadii Roomaanka wuxuu amar ku bixiyay in ciidamadiisu aanay guursan maxaa yeelay guurku wuxuu yiri qofku dagaalkiiba ka mashquulaya iyo difaaci dalka oo xaas iyo caruur iyo ku mashquulaya waa maqnaanay si taas aysan u dhicin buu ciidamadiisa wuxuu ka mamnuucay inay guursadaan in marka waxa jiray baadari ah oo baadariyadii kristaanka kamid ah oo si qarsoodi ah guurka u sameyn jiray oo dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha isu guurin jiray Fantine magac saas oo kale ah ayuu lahaa ninkii marka muddo hadii uu qarsoodiga ku jiray waa la ogaaday arintiisa waa fashilantay dawladna waa la soo qabtay toogasha lagu xukumay ninkii xabsi baa lagu xiray marka intaan la toogan ka hor intii toogashada uu sugayay ayuu wuxuu jeclaaday dadkii xabsiga ku jiray ninkii xabsiga madaxda ka ahaa gabar u dhalay ayuu jeclaaday dawadeedna ninkii baadariga ah waa la dilay ayaantaas bayna ku beegnayd marka la dilay 14 Febraayo 270 taariikhda miilaadiga ah ayaantaas ayaa marka waxa bilaabatay iyagoo ninkaas u arkay kristaanku inuu yahay nin haliyay ah ee diintiisii u dhintay arin dhalinyarada u baahan tahay u dhintay bay u arkeen marka maalintaas waxay ku magacaabeen maalintii jacaylka ilaa iyo waagaasna way u dabaaldegayeen ciida marka in loo dabaaldego shariicadeena kuma banaana maxaa yeelay waa ciid jaahili ah waa ciid gaalo ciidaheena kamid ma ah sideedana ciiduhu waa diin arinta dadku inay ogaadaan waa muhiim ciiduhu aqeeday ku yimaadaan Allah subhanahu wa ta'ala wa istaghfir li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan ummad waliba shariico iyo dariiq ay martay leedahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dajiyay inaga marka dariiqadeenu waa kitaabkaas quraanka ah iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam ciidaasina kamid maaha ciidaha muslimiinta sida islaamku saddex ciidood ayuu aqoonsan yahay ciida udhiyada iyo ciida maalinta ramadaanta laga afurayo ciidul fidrida iyo maalinta jumcada oo iyaduna ciid ah markii nabigu yimid magaalada Madiina sallallahu alayhi wa sallam ayuu wuxuu arkay dadkii halka deganaayo dabaal degay haduu weydiiyay waxay yiraahdeen maalmaha kan waa dabaal deganaayo ciid bay noota nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam ayaantaas faqad abdalakumullahu bihima khayran minhuma yawm al-adha wa yawm al-fitr maanta wixii ka dameeya ilaahay wuxuu idinku bedelay ciidihiinii hore laba ciidood oo ka khayr badan ciida udhiyada iyo ciida maxaan ku yiraahdaa bisha shawaal koodeeda ciida afurka ciida kale marka oo sanad ahaan loo dabaaldego shariicadeenu ma aqoonsana lamana ogola waliba ciidan iyadu waxay ciida maalmaha kale wax laga sheeshay ay kaga sii duwantahay waa ciid aqiido ninka baadariga ah oo kristaanka ah ayaa asal u ahaa hadii ciidaas loogu dabaaldego hadii gaaladii waa la mid noqonaya oo nahyigi nabigu uu sheegay kaleey salaatu wasalaam ayaa lagu dhacaya man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum qofkii qolo shabaha oo dhaqankooda iyo ciidahooda iyo akhlaaqdooda iyo dharqaadashadooda qolo shabaha nabigu iyagu kamid yahay buu yiri sallallahu alayhi wa sallam ciidaas marka waa dambi waa ciid jaahili ah lagama qayb qaadan karo la isugu tahniyeyn karo waxaan ku yiraahdaa meediyada iyo baraha bulshada tahniye la isugu diri karo la isagama sheekayn karo gaaladu hadaayad bay sameeyaan qoraalay isu sameeyaan maalintaas aad bay u jecel yihiin waliba hadii waagi hore xataa ay xus caadi ah sameyn jireen hadda arintii waa isbedeshay oo Mareykanka iyo Yurub badanaa habeenkaas waxa la sugaa habeenka waxa weeye faaxishada la sameynayo oo dadka ka warhaya waxay yiraahdeen dhalinyarada waxay sii diyaarsadaan bahalahan galcaarka la yiraahdo
maadaama habeenkaas zinada aad loo faafinayo oo waa ku talagalaan iskuuleeyda iyo jaamacadaha iyo wadamada gaalada dhalinyarada gaalada waa ku talagalaan waa sugaan waa habeen wax walba furan yihiin waxa noocaas oo kala ah marka inaynu ka qayb galno ama dhalinyaradeennu aado ama la xiiseeyo ama warbaahinta laga sii daayo ama in la sheegsheegaba ma banaana maxaa yeelay zuur way walladina la yashhaduna zuura wa idha marru bil lagwi marru kirama cibaadu rahmaan ilaahay sifaadkaas ku amaano waa kuwa wixii waxaas oo kala ah been abuurkaas iyo xaaraantaas meesha lagu hayo aan xaadirayn oo aan tegayn oo aan ka qayb qaadanayn oo waxa la mid ah hadda heesaha iyo waxaan fanka loo bixiyay oo fawaaxishta iyo dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada iyo daroogada iyo lagu faafinayo baa kamid ah marka dadka muslimiinta ah guud ahaan waxaan uga degaynaa waxaas iyo wixii la mid in laga digtoonaado inaan laga qayb gelin inaan wax lagu darsan inaan la isugu tahniyeyn hadii qofkaas qof gaaladii shabahay buu noqonay Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala wa ta'aawunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'aawanu 'alal ithmi wal 'udwan qofka cod kaga qayb qaata ama dhaqaale kaga qayb qaata ama tahniyad kaga qayb qaata ama warbaahin kaga qayb qaata qofkaas wuxuu noqonayaa qof maxaan ku raahdaa dambi iyo laytan iyo diin la'aan iyo ilaahay la caasinayo kuwa waxa sameeynay qof uu kaalmeeyay buu noqonaya oo kala qayb qaatay marka waxaas iyo wax la mid ah dadka muslimiinta ah waliba dhalinyarada ayaa in badan oo kamid ah laga yaabo in lagu fidnayo waxaan ugu baaqaynaa ilaahay kaga cabsadeen maanta waa adduun barina waa aakhiro waxa kan adduunkan macqaleysi kasto la isu jeclaysiiyo oo la isu dago aakhira damaysa wama alxayaatu dunya illa mataa'ul quruur adduunyadu waa iska waxa weeye waa ayaamo yar baa laga tagayaa oo waxaas birbirka la isu dhigaya marka dhalinyaro ayaamaha yar yar ayaamaha kooban wariyaan lagu dagmin oo aan ilaahay la caasiin oo waxyaalaha xagga gaalada inoo ka imaanay dibadaha aad hal looga taxadaro fala taqrannakum alxayaatu dunya wala yaqrannakum billahi algharuur war nolosha adduunyada yeesan idin dagin ha ku dagminina raaxadeeda ha ku dagminina birbirkeeda ha ku dagminina shaydaanku yuusan idin dagin waxaan waxa ujeedada laga leeyahay ayaamaha dambe loo faafinaya hadda ciidan sanadahan ka hor lama aqoon baba waa wax ayaamaha ku soo kordhay waagoor lama sheegi jirin damba laga leeyahay ummadii baa raba akhlaaqdeedii iyo diinteedii sida iyagu ay u dhumeen in loo dhumiyo Allahu musta'an ilaahay waxaan ka baryaynaa waxaasi wax la mid ah dhalinyaradeenna iyo waayeelkeenaba ilaahay qalbigooda inuu ka xiro ilaahay inuu ka sii jeediyo subhanahu wa ta'ala cidda waxaas ka shaqeynaysan ilaahay ha soo hanuuniyo subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu soo hanuuniyo kuwa ilaahay u toobad keenay inay noqdaan